shaqo yaridu waa mid ka mid ah mushkiladaha ragaadiya wadamada dunida haba ugu darnaadan kuwa soo koraya si gaara dalkeenna waxa uu ka mid yahay dalal kala dala dhacaya culisyada shaqo yari ee haysta da'yarta soo hana qaadaysa waa arrin adag helidda fursado shaqo marka la isbarbar dhigo fursadaha suuqa shaqada yaalla iyo tirada jaamiciyiinta ee doonaysa inay ka faa'iidaystaan jagooyinka bannaan ha yeeshee sanadihii dhowaa dhalinyaradu waxay garteen ahmiyadda ay leedahay barashada xirfadaha oo kaalin muhiima ka qaadata horumarka shaqsideed iyo tan guud intaba maxamed barre maxamed waxa uu ka qalin jabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalka isaga oo ka baxay maamulka iyo maareynta intii uu ku guda jiray waxbarashadiisii jaamacadeed waxa uu kusii dhinac watay oo uu baranayay xirfad uu dareysnaa in kaalin ay ka qaadan karto horumarkiisa shakhsiyadeed haddaba maxamed oo aan la kulannay ayaan wax ka weydiinay waxa ku dhiirigeliyay barashada xirfadda iyo sida ay ugu noqotay meel uu kaga badbaado aafada shaqayarida ee ka jirta dalka. muhiimadda koowaad laga fiiriyo qofka waa skills-ka waa xirfad maadaama waddankeena yani artiska aada u badan yahay yani xirfadan aada u yar tahay waxaan ku doortay waddanka inuu yani technician u baahan yahay jaaniskaasna macnaha uu bannaan yahay 2017 jaamacadda markaan dhameeyey dad badanaa jaamacad iskala qalajibanay hadda waxaan fiilaa dadka shaqeeya aada u yar tahay laakiin ani tan markaan dhameeyey xarunta ayaaba i qaadatay oo qof waxaan ahay maanta yani unique oon u baahnayn wax la dhahay sheeg waxaa laga yaabaa macnaha bachelorkan oo public adminka in adeer wax lagu raadiyo laakiin xirfadan technicianka wadankii ayaa u baahan walaahi horta dadka waxay ku dhaxayaan dabcan dad laga yaabo inay ku dhaxaanay bachelor afarsna soo waday hadana technician u laabato oo yani dubi iyo isheeg alaabta technicianka aad qaadato soo problem ah dadku dhaxwa laga yaabaa dadna waxay ku dhaxayaan jaaniska waa naga qarsatay يعني maanta waa jaanis kaliya aan u baahnayn garab oo meel kasta uu tii karto oo jaaniska la heli karo maxaa noogu sheeg weysay jaaniska ilaa hadda ma banaayahay ma heli karna dad ah waa arkeena dadkeena 80% dheerada wax baratay meel wuxuu ku leeyahay xafiis inaan ka bilaabo raba that's why qofka uu shaqalaan u yahayba oo wuxuu ku leeyahay qofka aniga meel hoos maraba qof walba haduu raadiyo xafiis ama meel sareyso in adeer uu ku tagay la uu raadiyo yani ma isbixinaysan filan marka shaqo walba waxa fiican inaad ka soo bilowdo low waa tagaysaa sababtoo aan hadda waxay awood ii siinaysaa inaan maamul maareynta ka shaqeyn karo inaan ka shaqeyn karo shaqo walba leader inaan ka shaqeyn karo awood ii siinaysaa